isbitaalka Deefo ah isbitaal ay maamulaan dhaqaatiir ka tirsan walaalaha Turkiga ayaa waxa ay keeneen qalab casri ah oo loogu talagalay in lagu daryeelo carruurta dhashay iyagoo aan dhameysan bilihii loogu talagalay taasi oo noqonaysa in markii ugu horeysay dalka la keeno qalab noocaasi ah. qalabkan ayaa dhalooyinka lagu koriyo carruurta 6 bil ku dhashay iyo kuwa kale oo casri ah oo carruurta aan qaadan karin oksijiinka lagu siiyo oksijiin u gaar ah iyada oo qalabkan maanta lagu baxnaaninayay 3 carruur ah oo aan bilo dhameysan kuwaas oo 2 kamid ay mataana ahaayeen. mid kamid ah dhaqaatiirta ka howlgala isbitaalka Deefo oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in qalabkan looga maarmi doono in caafimaad dibadda ah loo qaado carruurta Soomaaliyeed ee aan 9 bilood dhameysan iyo kuwa kale ee oksijiinka aan qaadan karin. Intensive Care Neonatal Unit ünitemiz başlamış bulunmaktadır. Somali'ye hayırlı ve uğurlu olsun. Bundan sonra prematüre bebeklerimiz ve sorunlu bebeklerimiz yurt dışına gitme ihtiyacı olmadan burada tedavi olacaklar. Wuxuu leeyahay markii ugu horeysay isbitaalka Deefo Hospital wuxuu bilaabay ilmaha aan bilo dhameysan dhalooyinka lagu koriyo oo la yiraahdo Ingiriisiga incubator lagu dhahaa waxaana ka shaqeynayo dhakhtar specialist ku ah qaybta neonatka iyo nursingkii uu diyaarsanaa qaybtaas. Şu anda bir normal bebekler 3 kilo doğar doğumda. 6 aylık doğan bebeklerimiz var. 3 ay önceden doğan bebeklerimiz. Kiloları da 3 kilo doğması gerekirken 1,5 kilogramın altında yani yarım bebeklerin yarısı kadar doğan 3 tane bebeğimiz var. Ayrıca bir tanesi de saa arkaysan hadda sida normaalka ilmaha waxay ku dhashaan 3 kilo hadda waxa qaybta jiifa ilmaha u jeedin inay 9 bilood ku dhasheen meeshii la rabay inay 6 bilood ay ahayd xaamilada hooyo markay dhashay hadda 3 bilood yani ayaa u dhinaca canugaas oo hadda maxay tahay meesha jiifa iyo 2 canug oo mataana ah oo ayagana xal ku dhasheen isbitaalka isla markiina u baahday dhaladii lagu korin lahaa hadda meeshii ku jiraan canugaas u jeedaan oo 3 habeen ku jira 3 habeen wuxuu ku qaadanayaa maxaa la haye oksijiin ahaado dhan kasta ahaado. waa markii ugu horeysay oo caasimadda dalka la soo gaarsiiyay qalab casri ah oo loogu talagalay carruurta Soomaaliyeed ee aan bilo dhameysan. Mustafa Maxamed Xiire, telefishinka qaranka Soomaaliya, magaalada Muqdisho.